قضية اللبات إيرعدة وقضية علايس كذا له بريهنا برها بالشدة آد لو ودودي ضد بدن أي كهلين وذا أي كهلين دل يدبت بتشوجة وقضية دي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه إنا ورسمه هذا الكيسي وهذا دقيستين بانو ملاي أنا أقول مركو رمتش علي إن كهل إن بدن بوحان سوء أضع دمان لو ما هاد ليه حلو هاد لا هذا البعض دمان لكن تلفونك يا هذا الكبا يقول بطي وذا إسلام كما حكى الربي وأديكي دجالمي تشوف فاجن شري مركب النبي وحلقة شيء الدين كي بريان محاكو داري إن لا يستهمي تكتباش إن لا يستهمه أي تكتب وارنسك علوس محاضرة جونية فرد جونية بيوبها تاي مركان أدو يسوق قاعدي ونديب هذا الكود دقي يستينا وده ديه كهالله وأن يراها سلوجة سلوجة أن سلوجة درتيت بمحان السيدي كلمة جونها كقمين لكن بالعشر كمسلم كجوديس حقوق أن كدر إنه ديكتوشينه كده قضب ككوبات وحان ربائنا أمها النقو علماء المسلمين تهيت أنا عندنا بقى عابينين قضية ذا كهل سوداي إن أيدين كدفاعان أفلقات دي شائفة النبي قال له جيستي أي كديديان مسلمين تأي براروشيان كو عربيان أو كو ترترسيان الدين كود الدفاع له أرنت السكان مهنق بين مدنته من الربو إن أنكوهس دعوه نيجي جيل شراها يسوي عيل شو هاشو هاسي وحور مركز تبنتهاي أما لا تجو هالليل لو ما كلا تجور يعني جيل مركو عيل كجو ما كي تبنتهاي أما لا تجي لا دعوه لو ما كلا تجو markay ceelka joogto waxa shubi ninkii shalay in loo liso loo diiday ninkii laga marti soori waayay ayaa markay geeyo ceelka jooga shubahayo xaq loogu leeyahay hadii la dhaco dhicinteeda iyo ku dagaalankeeda waxa laga rabaa ninkii gaadid looga diiday hal maal looga diiday zakal laga siin waayay asagoo socota dhil caana looga lisi waayay marka wuxuu markay tobantay ceel joogto weeyada ama lala togay la dhaco wala looma kala taguuri looma kala tago isugu yimaada bimaana geela in la ilaaliyo la dhaqo waa dan guud weeye dhaqaalihi baa ku dhisan Soomaali baa ku taagan xoo yarkee markay inoo dhaxeeyo xisaabaadka ah markaas oo la fiirin mahayo horta geela hal la shubo war hal dhacsho weeye hada wadaadahaas wax badan oo noo dhaxeeya in kamid oo qadiyada ka hadashay hadda kulli xan maayo maxaa yeelay waxay ka hadleen hawl aan loo kala tagaynin wala looma kala tago Soomaa garataan meesha u socoto mar haddii diinkii iyo rasuulkii iyo shariicadeeni khatar la galiyay nin walbo ka hadlay oo difaac isku daya gaalba Allah ka dhigay wuxuu naga mudan yahay waad mahadsan tahay inaan dhahno in Allah la yu'ayyidu بهذا الدين بالرجل الفاجر وذا ما انتو مهنقود هدان كتغو وحاسي غار انو مهنقيا بولشدا dhalinyarada labiya dhadig bale ee baraha bulshada aad uga dagaalamay hawsha ka dhiidhiyay ee wacdaraha ka muujiyay ee markaan dhageystay ama aan daba galay qalbigay ku qaboobay aad bar u farxad ayada in muslimiintu maanta dhalinyaradoodii ay taagan yihiin ninkii nabiga wax ka sheega ama diinkeena dura inay halka la gaaraan dareenka maanta ay qabaan dhalinyaradu muslimiinta lab iyo dhadigba hadduu 75 jiri lahaa culumadani lama laayeen ina siyad barre dam baarida kuma gowraceen ninka boqorka ama madaxweynuhu waa faajir baaqi ah wuxuu qiimeeyaa kolba
bulshadu meeshay marayso haddii bulshadu yacti dhaahdo wuu cabsadaa haddii u hogtaanna wuu dullaystaa xaqiiqo la og yahay weeye arrintaa dhallinyarada baraha bulshada inaan u mahadnaqo waxyaabaha ay u kallifo weeye inaan caawa ka hadlo qadiyadda ayada ma jeclayn inaan qadiyaddaas aan soo celceliyo idinkoo igu daalayay kuwa la mida inaan ka hadlay laakiin dareenka ay dhallinyaradu lab iyo dhadigba baraha bulshada ka muujiyeen ee diin jacaylka ah ee danqashada ah ee islaam jacaylka iyo dhiidhiga ee ficilada diineeda ayaa idanqay oo u kallifay inaan qadiyadda caawa ka hadlo qodobkaasi mahadnaqa dhallinyaradu waa iga mudan yihiin khayr allah ha siiyo duunkada allah ku sugo mar walbo qadiyadda noocaas ay timaadana waxaan ka doonayaa inay ka hadlaan qodobka ii raaca waxaa weeye inaa warsamo hadalkiisu inaan qiimeeyaan rabaa kadibna xugum saaro marka xigtana wadaadaha ka hadlay waxa ka khaldan aan tilmaamo marka xigtana waxa idinkaga aadan dadka noocaasoo kale aan tilmaamo qodobka koobaad waxaa weeye ee ku saabsan inaa warsame hadalkiisa togan iyo ka taban bilow iyo dhammaad marka la qiimeeyo la dhibciyo wuxuu xambaarsan yahay in la quursado nidaamka islaamiga ee siyaasadeed la bumbuuniyo la ammaano la bilo nidaamka reer galbeedka siyaasadeed hadalka nuxurkiisa guud markaad qiimaysaynu ka hadlayna bilowga hadalkiisa ilaa dhammaadkiisu wuxuu iskugu jiraa hadal toosoo togan mubaashir baa carabiga lagu yidhaahdaa iyo mid taban af soomaaliya tabni baa la carabigana hayru mubaashir baa la yidhahdaa hadalka togan ee toosan iyo ka tabanba bilow iyo dhammaad markaad isku qiimaysa qiimayn guud maxaa ka soo baxaya waad dhegaysateene anigu 3 goor baa ku ceshaday waxaa ka soo baxaya nidaamka siyaasadeed ee islaamiga inuu quursanayo xaqirayo ama uu daraabayo xaggana uu bilayo wanaajinayo nidaamka reer galbeedka ee wastareenka siyaasadeed dimuqraadiga mucaasirka ah qodobka asaga waa kufrun fi diin illahi biijmaaci lmuslimiin gaalnimo uu ku dhacay kow iga dhimidda ayada gaalnimada kale hadalkiisa uu xambaarsanaya labaad waxaa weeye inuu inkiray xadiidkii saxiixa ahaa fi saxiixayn ummadduna ay kula kulantay bilqabuuli ay kula kulantay 1200 sano ka badan من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين ومن حديث ابن عمر في صحيح مسلم يا أحاديث فربنا وذكرنيسا ناقصات عقل ودين وحكوت المامي إنا ورسمة وحكوت المامي إنه يا حديث فالساء أو ميلو كيمد أي سنشرين أو شابك لغلا صوبحا عذر دارشدي الدبلوماسي السياسي هيدا بي بسد أوسيين وحكوش إنه حديث كانوا صحيح أوجيه حديث نبي محمد أكتها إنه السجيا نك الضفير حكم كيسو وكفر أصونا على الراجح من أقوالها العلم وإن كان من أخبار الأحد خبر واحد بالله كردو نك الضفير حديث سجان لفظ جيسا أمام معانيهيسا أصوغ قرنية إنه السجيا هاي نبينا أوليه وكفر لباد أو كدعي كفر صدحات uu ku dhacay waxa weeye hadalka taban laga fahmaya ama daahir bakuha nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo culimada muslimiintu xaqiray laana xadiidka wuxuu sheegay inuu xaqirayo dumarka in lagu afjigo oo xaq ay leeyihiin laga celiyo dumarka lagu quursado lagu xaqirayo xaq siyaasadeed ay leeyihiin loogu diidayo xadiidku sugaya sidoo asagu oo arkay marka uu aaminsan yahay xadiidka xaqiraada iyo liidnaanta iyo dulmiga dumarka xambaarsan waxa ku hadlay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam taa macnaheeduna waxa weeye suubanuhu asaga kow ka ah wadaadaha iyo culimada xaqira dumarka xaqoodana u diiday afjiga xaq siyaasadeedna sanka kaga dhuftay u diiday suubanuhu la xaqira kaleey salaatu wasalaam waa maxay waa kufrun bi ijmaa'i ahli alqibla hadalka saddexaad kufriga saddexaad inaad sidaa u fahanteen
baan u malaynaya waxaan ka hadlayaa hadalkiisa tooska midka sariixa ka daahirka ka iltizaamka iyo luzuumka ku imanaya intuu waa isku qiimaynaya waxa kaloo ku jira hadalkiisa inaad dhagaysateen baa laga yaabaa qaybaha u dambeeya wuxuu leeyahay waxa la sheegay leeyahay musiiba dhalan iyo balaaya dhalan iyo liibaan daraa dhici haddii dumarka siyaasadda loo dhiibo ama ay taliyaan ama madax noqdaan waxba kama jiraan waa been buu leeyahay halkaana wuxuu dafirayaa oo beenayaa suubanaha calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisii abu bakr nufay ibn al-harith lan yufliha qawmun walaw amrahum imra'a nabigu ma guulaystaan ma liibaanaan buurasna nabiga yiri asna wuxuu yiri waa been waxba kama jiraan way guulaysanayaan wax musiiba dhici mayso isku dhac iman maayo hawshu waa dhagdhag nabi allah kari of baa lagu yiri hadalkiisu waa sida sibcaan dhuuxdeen baan waa kufri afraad waa kufri iyo gaalnimo afraad way hadalka dib u dhageysta midda shanaad oo ku dhacay gaalnimada shanaad oo ku dhacay hadalkiisa erayga ugu dambeeyo way wuxuu leeyahay haddii dawlad aan awood ku leeyahay ama aan ka taliya ay istimaado Soomaaliya waxaan ogolaanayaa oo qarirayaa in rag iyo dumarku ay siman yihiin maydan dhageysanin baan u malay rag iyo dumarku waa siman yihiin waxba uma dhaxeeyo dumarku ragga kama hooseeyaan naaqus ma jiro waa laba farood siman buu leeyahay وهذا ومحي وتقرير المساواة بين الرجال والنساء وكفر أكبر بإجماع المسلمين وأنا تي علماء اللي يقول لا يتضباطنيو شنتي قد يدو يسقالك وأما طبانك اللي قد لي كفر قاسي وكفر شنادوي كفر لحاد وكتر وحاوي هوين ايدي قاشا هايد انجلا ماركل ku duqowday gaalnimada tincaska ku noqotay ayuu amaan kala dul dhacay aadna u amaanay wa tabjiilu kaafirin kufr inda alfuqaha gaal in la weyneeyo oo la bombooniyo oo ummadii qudwiyo ku dagasho looga dhigana waa gaalnimo madax banaan عند بعض الفقهاء كفقهاء الحنفية بل وحي قارسي فقهاء ولو سلم على مجوسي تبجيلا كفر ولو قال لكافر يا أستاذي تبجيلا كفر هداد قال وينيسو وكتر المعلن كيجي وبرفصور كيجي وأضو وينيني أما ثلاثة سلانة يكم مقنا يسوي وينين كفرت بالله العظيم عند فقهاء الحنفية أنجلا ماركل قابك ويني يسوء بومبوني يمشوا جيي إلى أن كسكتين عن شعل هذا الناقطة أيوه وذي وامحي والتبجيل كافر كفر ما هو كفر بعد هيسان لحظة قال نمو كتيرا إنا ورسمه 6 سنة حتى سسر بين أغنوس توبت كين بين بوشيغي مركو لها واربحين تبي بسدسي وحييلي وحان كوذي معناها حديث كبينتي وي مركز باب الكفر هي تفسير الألفاظ مريسان هي دلالاتك روح هذو قال لي معد كهالله أما إري ظاهر كؤه معنى كهالله كدبنا ومعنى كلا كأولا لا يقبل عند العلماء حديث فالساء وميلو كيمد أوسنشرين أو شابك لغا صباحي أي ضمرك اللي حاقر يا هذا الكيس السريح يسوي ما يمسماها وحان كوذا التفسير كيسير معنيه سواء بين عط وكلام دبلوماسيا بردق الليسي عامة الربا إن شاف الله الله أرضه ضدك اللجوية للربا إلى أمن كان توبة صريحة وولي منك أسقى موتشر لحظة كفري أيا أرمرك هذا الكسفير يبرنان كتالا نكي سيقود قدرة أفمدوبا لميل على جموايه واللقيه ليا كفريات كله محام مسلمين تكاجا آدم مسلمين توحى كاجا آدم نك أسقى وحو خطر قليي الدين كيجا وحو مال كاجا دعي قدرنتي يحرمدي شريعة ضيضة وحو قرصدي سبحانه نك عليه الصلاة والسلام وحا واجبة نفتي سين خطر لقلي مال والباء وشغل لقو بيكسو قال يرضى المسلمين تان الله الله إياه تشلب علوس تلمها الله إلا أنه جلعست واي قبيل هدي حبن كودي يعاد كودو غوستانا هل كابا ما انت هوش ما قاعدين
ninka gabay ee geedkiisu nagu soo dumay waa duqayda dhalinyaradan la hadlaya dhalinyaradu waxa waajib ku ah ninka asaga sidoo muqaddasaadkiina khatar u galina naftiisa khatar u galisa wa ana atahammal mas'uliyata dhalika bayna yadi Allah subhanahu wa ta'ala midaasi waa qodob arrabay qodobka irca waxa weey wadaadaha ka hadlay badankood hagardaama diineed bay idinku sameeyeen hagardaama diimeed bay idin geysteen waxaan ka ahayn inta anigu dhageystay baan ka hadlayaa sheekh daahir aw abdi iyo sheekh xasan daahir aways faka Allah asrahu waxaad arkaysaa kuwa kuwale ninka waa inuu toobad keeno ayagoon xukumayn waa idab daro iyo marin habaabin ummadeed weey ruuxu hadduu cudurdaar leeyahay ama kufri ku dhaco ama uu dembi ku dhaco cudurdaarna leeyahay ha toobadkeena macnaheedu maxay tahay waa been caamadaa lagu siraa idinkaa waxaa laydin moodsiinayaa in la hadlay oo xaqi la caddeeyey oo diinka la sharxay oo diinkii la difaacay waa been wey ninku hadduu cudurdaar leeyahay oo ama mutaawil yahay agtiina ama uu jaahil yahay dembiba kuma dhicin muxuu ka toobad keenayaa kufriba kuma dhicin muxuu ka toobad keenayaa ninka mutaawilka ama jaahilka ama cudurdaar kale wuxuu ka soo ka dhigan yahay kaanahu lam yaqa inuusan ku dhicin wax dembi ama wax kufri ah miyaad aragtay nabi maxamed oo saxaabi khaladamay oo jaahila ama mutaawila tub ila allah ilaa gawaanka cidada lidinku ordaya beenta ee geedka saramarada la idin saaraya iska ilaaliya dhagar iyo khiyaano way khiyaano labaad idinka galeen waxa weey ina warsame in badan oo kamida waxaan tuunsanahay in qabyaalad ay u caydhsanayaan in ayaga kamidana waxaan tuunsanahay in siyaasad ay u fiijisanayaan haddaysan jirin dareenkaygu uusan sax ahayn maxaa kala duway cali wajiis iyo ina warsame cali wajiis oo kii darad lahaa ma aha kitaabka quraanka looma soo dejinin in ummado iyo dawlado lagu maamulo ma aha qaamuus loo soo dejiyay in ummad lagu maamulo hadalka cali wajiis iyo hadalkan ina warsame kee khatarsan inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيبا أولم يكفي أن أنزل عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إذن قرآنك وحالو سودتشي إن أمة نبي محمد لغم ما ملدل يدل يضد يدين با نينك الشلي لها كتابك قرآن كان ماها قاموس لو سودتشي أمة لغم ما ملو شيخ يا عالم بكوية هاي مساجد كسود ويستان كان هبر قدنا واد في جسن محان مركا كامنه مودا داعدا تاي مش دنيستا تاي ina warsame xukuumaddu ka tirsan yahay iyo amiirkeeda farmaajo ayaa waxay ku yihiin dawlad islaan ah ayagaana ka daray ina warsame wuxuu aaminsan yahay la aaminsan yihiin wayna ka daran yihiin cali wajiis iyo ciidankiisu iyo farmaajo iyo kulligood iyo khayre waa maxay waa hal diro isku mid ah ummadda maxaad u dhakraysaan oo u khaa'imaysaan haddaad cabsatee ma iska aamustaan ila waa lugooye haddii aad badhiraysaan xaqa ma cadaysaan maxaa keenay in laba shay oo isku mid ah bal kala daran kii daraana laga aamuso kii tabarta yaraana la fiijisto la cayrsado mindha hawshu waxa weeye miskiin baahee miska la fuwale ina warsamayn mindha tun jilicsadeen baa laga yaabaa ama baraha bulshadu bariyahan aad loogu dagaalamo kastam laga raadiyo ayaa la qancinaya xogo balaqa loo tuuraya la socda amba diinka waan difaacay yaani waa khalad hawsha ayada dhalinyaradu inay ku katobaan ma
dhalinyaradu inay ku kadsoomaan erayada khaldan ee majara habaabinta ah waxa weeye ee dul sare la meerayo waa khalad ummadda laba in lagu lugooyo ina warsame iyo intuu ka tirsan yahay ku dawladda waa isku mid xilli aan dheerayn buu lahaa laba kamida haddii aniga la yiraahdo shariicada miyaa lagu dhaqmaa mise dastuurka ay say no soo ma garanaysaa xagee jira ninkii saalaha kii uu sheeg hawarka keerayna waa fadhiyaa علي وجيز وحا أكفر مركو سيدا لها وذاك احتسام أمير كودا نيك سليمان محمد مقعيسي بشير أحمد سلاد بأكفر دور حيا وركدا ملا سو فيديو ما يدن داوانين قرب نجاسة أو إسكال ميستي أو إذن كيدن لقوين يوي سمالي وحيد ترادا ضميرية ضمر اسكو در على لمدقو ضدك ألد قنتين الدولة دا إذن أوا اسكو در واسكو فر دير كان كهليا معك قبيله الله سعدات واسكو مبدا يسكو فكر بان كهليا عد يدوني هالنقدين يا ليدن لقوين بين يدين شيء انت عاو ان يراهدو واربي الهي بار سبحانه وتعالى انو كسوينا دوله اسلام وقمن ونسيو وحي دينك يا كسور جيدنا ودميو بابئيو عدوغا مسلمين تي دينك انو هجبو وحي دينك انغا تاغرسان الله غوليو فرينتيدو waxa weeye أحد أمقان دينكينا مجرى لا علمه ولا وايلي نبضونا دلين يرى أطالعه شاء يعني نلوغا صدعين الباب كإياه فرنتا تاغنتهين والله أعلم